bishii Oktoobar waxay ahayd bil saameyn weyn ku leh noloshii halyeeyay reer Falastiin ee shahiid Yahya Ibrahim Hassan Sinwar. Oktoobar 29 1962 waxa ay ahayd maalintii ay Baweyne subxaanahu wa ta'aala uu qadaray inuu dunidan yimaado. Oktoobar 18 sanadkii 2011 ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka soo daayay gacanta cadawgii sahluuniyada ee 23 sanadood oo xabsiga ugu jiray ee ay ciqaab daran iyo jirdilka ay ku hayeen. inagu si guud marawr markaa u sharaxayna Oktoobar 7 sanadkii tagay ee 2023 waxay ahayd maalinkii qulubta daalimiinta iyo kuwa kalkaala ku argagax geliyay wadnahooga dilaaciyay carabkoogana banaanka uu keenay an fariirka hooga iyo halaagana uu ku riday ruuxdooda hawlgalkii barakaysnaa ee duufaantii al-aqsa ee uu ugu hiiliyay diinta islaamka iyo dadkiisa reer Falastiin ee madluumiinta ah. hawlgalkaasi guuleystay oo cadawga ku noqday waji gabax iyo ceeb oo aanay si fudud uga soo kabsanaynin ama aanay ka bogsanaynin inta taariikhda koonka baaqiga tahay. Oktoobar 13 maalintii Arbacada ahayd. Oktoobar 13 sanadkan ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka aqbalay shahaadadiisii isagoo ku jihaadaya cadawga arxanka daran joogana furimaha hore ee dagaalka kuna jihaadaya sahnuuniyiinta mushrikiinta munaafiqiinta iyo inta la jaalka ah ee xisbul shaydaanka ah